gudoomiyaha kumeel gaarka ah ee xisbiga wadani way weheliyaan xogayaha arrimaha dabadda, gudoomiyaha garabka dhalinyarada, xogayaha amniga, xogayaha ciyaaraha iyo la taliyaha musharaxa madaxweynaha ee xisbigaasi wadani ayaa gargaar dawooyin gaarsiiyay cusbitaalka guud ee magaalada Burco oo ay buux dhaafiyeen bukaanka uu soo ritay xanuunka shuban biyoodku oo dhowrkii maalmood ay ka soo gudubnay sababay geerida in ka badan 6 ruux. saraakiisha sare ee xisbiga wadani ayaa ku wareejiyay dawooyinkaasi iyo gargaar kalaba isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer, waxaana si wada jir ula hadlay warfidiyeenada gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiqaadir Jirde iyo isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer Dr. Yuusuf Dirir Cali, kaasoo ka mahad celiyay gargaarka ay soo gaarsiiyeen xisbiga wadani cusbitaalka guud ee magaalada Burco. baaxadda dhibaatadu intay leeg tahay iyo baad caafimaadka ee Burco ka xoog roon tahay waxaanu u soo jeedinaynaa baaq inay degdeg ugu soo gurmadaan gobolka. xukuumaddu iyana hawsheeda waan u sheegi doonaa markaan u tagno, dhibaatadana waan ula qaybsan doonaa. Togdheer waa xuduntii Somaliland, wixii ka dhaca Togdheer dalkoo dhan buu saameeyaa. marka waxaanu leenahay walaalaha iyaga halkaa jooga Awdal iyo Maroodijeex iyo cusbitaalada private-ka iyo dhakhaatiirta tirada badan iyo shaqaalaha caafimaadka mid dawladeed iyo mid private-ba in loo soo gurmado Burco iyo Togdheerba. waxa weeye jihaad baa ku jirta bimaana kelima jihaadkaana leedinku eegay idinka kaligiin maaha, waayo hadduu Burco dhaafo meel uu ka baaqanaya ma jirto, wax buuran ma sidno. wixii aan islahayn waa muhiim emergency-ga ahaa waxa weeye waa ringer mid solution salinki ORS antibiotic dowra gloveski maaski balay farxalkana waanu wadnaayna wixii nadiifinta iyo hygiene-kana antiseptic biyihina waanu wadnaa. mushkiladda weyn waxa weeye biyo nadiif ah, dadka cusbitaalka shiif waa biyo nadiif ah helaan. intaana ku dayn mayno waxa maqan oo soo socda inaan noo imanayo gurmadka ka qayb gali doona musharaxii madaxweynaha Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cirro iyo hogaamiye xirsi oo Dubai ku maqan. ogaagii dawada ahaa ayaan wareejinaynaa. intii kale wataa gaadhiga saaran waqti lama hayo, imika dhulka lagu soo wada dhigo iyaga xareysan doona stoorka gashan doona isu duwe naga gudoon. dhammaan mas'uuliyiinta kale ee ka socota xisbiga wadani ee halkan noogu yimi ee soo dadaalay ee soo gaarsiiyay dawooyinka ma siyaasadaysan. waxaana la jooga hay'adaha dhowra, waxaa noogu soo horeysa hay'adda International Federation of Red Cross oo iyadu gacanta ku qabatay meeshii. waxaa jooga hay'ado kale oo Save the Children, HPA, World Vision, waxaas oo dhan midba meel ayaa lagu aadiyay oo la halkiina ka soo baxa. gargaarka dawooyinka xisbiga wadani ay gaarsiiyeen cusbitaalka guud ee magaalada Burco ayaa ku soo beegmaya xilli wasaaradda caafimaadka Somaliland ay shaacisay inay ku fashilantay wax ka qabashada xanuunka shuban biyoodka ee ka dilaacay magaalada Burco. Ali Daahir Maxamed Boos, TV caalamiga Universal, Burco.